Xaliimo Calasow waa hooyo Soomaaliyeed oo ku noolay deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxay ka carootay codsigii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu golaha ammaanka kaga dalbaday in dawladda Eritrea laga qaado cunaqabatayntii caalamiga ahayd ee la saaray sanadii 2009 iyadoo wali uu taagan yahay muranka la xiriira dhanka dhulka ee xukuumadda Caasmara kala dhaxeeya dawladda Djibouti. Allah u naxariistay hooyo Xaliimo Calasow ayaa u dhimatay sun ay u cabtay arrintan darteed waxaana dadka ay sheegeen inay ka naxday madmadowga soo kala dhex galay Soomaaliya iyo Djibouti maadaama dawladda Djibouti wax laga xumaado ay ku tilmaantay codsigii madaxweynaha Soomaaliya. Telefishinka On Cable ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Daawud Cabdi Maxamuud oo ah wiil ay dhashay hooyo Xaliimo waxaana uu ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen. hooyaday ayaa maanta isku dishay meeshan oo soo hadtay sababta sunta u hadtay aniga markii hooyo fiyo aan ka dhaqaaqay marka magaaladan aaday isla markii magaalada tagay hooyada isdishay leerin laakiin sababtu waxay tahay Eritrea iyo Djibouti xurgufa ka dhaxaysay oo Djibouti dhulka laga haystay sida aad wada ogtihiin sidaas aawadeed maadaama uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu booqday Eritrea markii uu ku dhawaaqay in cunaqabatayn laga qaado Eritrea ayay hooyada aad iyo aad uga xumaatay ayagoo leh Djibouti oo walaalaheena oo shalay noo hiiliyay ugu abaal dhacayna oo aan ula safarayna saas awgeed bay soo wactay waqtiga ay sunta xadhaysay markii laga kala dhaqaaqay oo waxna xoolay aadeen waxna beeray aadeen aniguna tuuladaan aaday markii ay keligeed noqotay cabtay marka ayagoo naftu ku dabayarta lagu soo gaaray qaylo dhanto sidaas lagu soo gaartay annagana magaalada waan kasoo laabtay gurigaan imaday may sideedaba Djibouti yaa la xumeeyay ilaa xaroo dhan ay islaan umar gelin ma aha nin loo hiiliyo in sidaa loogu maahayn sheeg maxay ahayd islaan mageel madaxuu saaray haddii lagu abaalgudo xitaa waxay tiri haddii magaca Soomaaliyeed aan iska bedeli lahaa oo dawlad kale maanta aan noqon lahaa xitaa qaalibanka Soomaalida ba sheegan maayo iyadoo ay xaaladdan lahayd marka maanta shacabkii Djibouti gadooday markay maqashay qiirinta qaaday sunta ugu cabtay. Arrintan ayay la yaab ku noqotay dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo maanta ay taagan tahay hadal haynteeda. Yusuf Abubakar, Telefishinka On Cable, Jowhar.